الرحيم dhammaan madaxda kala duwan ee halka joogtay ugu mudan yihiin gudoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ra'iisul wasaare ku-xigeenka madaxda dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka madaxweynayaashii hore ra'iisul wasaareyaashii hore wasiirada iyo cid walba mudan oo halka fadhida dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaa runtii sharaf weyn noo ah in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu noogu soo gabagabeeyey shirkii muddada 3 maalmood socday si nabad ah oo degan oo xasiloon oo runtii miro dhal ah marka la fiiriyo sida looga qayb galay marka la fiiriyo sida talada iyo ra'yiga loo dhiibtay iyo gunaanadkii halkii laga akhriyay warmurtiyeedka ahaa oo soo koobay muddadii 3 beri ahayd shaqooyinkii la qabtay oo runtii ah dhaxal Soomaaliyeed waan uga mahadcelinayaa heritage iyo tiimamkii la shaqeeyay waxaan si gaar ah maanta halka rabaa hortiin inaan uga bandnoqo mas'uuliyiinta dowladda Puntland heerarkeeda kala duwan wasiiro saraakiil ciidamo dhalinyaro iyo shacab iyo dadweyne madax hore iyo madax hadaaba sida mugale ay uga qayb qaateen in uu shirkan hirgalo oo culayska intaa la igu qaadeen waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa guddigii amniga oo wasiirka amniga uu hogaaminayay saraakiisha ciidamada ee xukuma iyo gaar ahaan ciidamada qalabka sida ee Puntland oo runtii hirgeliyay in si ammaan ah shirkan uu qabsoomo oo weliba lagu damaashaado hareeraha iyo daafaha magaalada habeen iyo maalin saq dhexe oo dadku si xorriyada ay maaragtay ugu soconayeen Puntland waxaa runtii mudan yihiin mahadnaq iyo abaalmarin gaara insha Allah wayna ka mutaysan doonaan shacabkooda iyo madaxdooda intaas marka aan ka tago runtii shirkan ahmiyadda uu lahaa cid walba way qirtay waxaa halka ku taalay arrimo muhiim ah oo la rabay in 2025 la gaaro arrimahaas ahaa dalku xasilan dhamaystir dastuur qabasho doorasho iyo nidaamka federaalka oo shaqeeya waxa loo soo qaatay macnaheedu waxa weeye muddadan ka horeysay shaqadaas ma qabsoomin 4 sano la soo dhaafay shaqooyinkaas ma qabsoomin 4 sano la soo qaabtay inkastoo shaqooyin muhiim ah oo dhinacyo qaybtood la qabtay laakiin waxaa inii sheegaya qodobada muhiimka u ah daldhiska Soomaaliya khilaaf baa halakeeyay 4 sano la soo dhaafay federaalkii shaki baa la geliyay dastuurkii shaqo lagama qaban nidaamkii amniga qaranka ee dawladdan markay timid miiska yaalay laguma shaqeyn doorasho qof iyo coda looma diyaar garoobin aniga kolley inkastoo shaqo qabanayo haddii dad shaqeeyay meedan shaqeyn la yiraahdo laakiin waa habboon tahay maanta kale maadaama madal furan ay tahay inay dhaliilo ka jirteen oo shaqooyinkaas aan la qaban waxaa daliil u ah inay heritage dadka Soomaaliyeed ay isugu yeertay ay tii war waxa kan ka hadla lagama soo shaqeyn waxaan rajaynayaa waqtiga anagu nagu socda jiilka dambe ku socda dalnimadeena iyo dadnimadeena ku socda dawladnimadeena ku socda oo halis ku siiya waxaan ka codsanayaa madaxda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto iyo shacabka Soomaaliyeed in ay iska iloowaan nolosha siyaasadeed ee maalinta la doorto qofka ilaa maalinta uu xilka ka degaayo wada campaign-ka ah baarlamaan iyo xukuumad is haysta madaxweyne campaign ku jira shaqooyinkii la rabay lama qabto marka qofka iyo position-ku helaya waxaa ka muhiimsan systemka dawladnimo iyo waxa aan ku shaqeyn doono marka waxaan aad u codsanayaa in xoogga la saaro meesha mudan oo waqtiga la isugu geeyo runtii fursad qaali ay ahayd muddadii halka la joogana khubaro kala duwan oo ah kuwa khibrad iyo kuwa aqoon durugsan u leba daraasadahoodii halkaa lagu soo bandhigay in badanna way dhiman yihiin waxaan rajaynayaa waxa dambe ee soo socda si ay noogu fududaato
oo aan 4 sano soo socto waxa looga shaqeeyo waxaan u baahannahay doorashada hadda kaabiga nagu haysa ee ka horeysay mawduucan iyadoo la heshiis laga yahay in maanta la qabto ay ahayd oo hadda weli hor joogta waxaan rajaynayaa doorashadaas inay noogu dhacdo si la ogol yahay runtii heshiiskii 17 September oo muddada laga soo shaqeynayay wuxuu u yahay maanta guddig fiican oo la ogol yahay waxyaabaha laga tabanayo oo tuhunka keenayo oo runtii sidaa uu sheegay baramaster guuleed 2016 anigu tartamayaashaan ku jiray afarta hore kuma jiray laakiin kuwa markaas cayaarta soo bilaabayaan ahaa laakiin rajaan qabay haddii odayaashii waaweynaa rajabeel ku dhacaan hadda oo ayaantaas safka hore ku jiray doorashadaas inay mugdi ku jirto cid baa shaki uga jirta horta marka doorashada xoogaa mugmadow baa ku jira in madmadowga laga baxana annagoo dhan ay noo fiican tahay qofna gaar kuma aha dhib qofna dhaliil kuma aha qofna libin uma aha maxaa yeelay doorashadan waxaa la rabaa inay dhasho in su'aalahaas 4 sano soo socota laga jawaabo marka insha Allah waxaan rajaynayaa dadaalka ay madaxda Soomaaliyeed wada aad baan uga mahad celinayaa madaxweyne qoorqoor iyo aniga shirki gaalkacay ka dhacay runtii shaqo badan ayaan dusha u ridanay meel fiican bay maraysaa oo shirarkan halka ka socda fursad kale aan uga faa'iideysanayo habeen iyo maalinba shirar kala socda oo la isu soo dhaweynayo waxaan rajo weyn ku qabnaa in annaga oo dawladii ah oo labadeedii la yar dawladda ah iyo dadka doorashada ku jira oo mid wada ah oo Soomaali ah inaan isqancino oo niraahno sidan aan wax ku galno sidaana laga badin waaye oo dadka musharaxiintana ay naga aqbalaan dadka dawladda ana naftirkooda iyagu kaliya legitimacy iyaga waa wada shirayaan laakiin ay eegaan dadka kale waxay ku qanci karaan ruuxadooda oo labada darafba wax qanaaco ka imaan karo oo laga wada hadlo oo heshiis laga yahay inay soo baxdo dabcan marar hore badanna waan ku baaqay shirarku inay bataan waa muhiim waxaan halka ka codsanayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka iyo ra'iisul wasaarahaba in la isugu yimaado shirkii 17 September lagu heshiiyo kale mar labaad hadduu garow ka dhacayana gogosha diyaar baa u nahay haddii meel kale uu ka dhacayana inaan tagnaan diyaar u nahay laakiin waa in la xalliyaa waxa taagan iyadoo waxaas taagan yihiin indhaha lama qabsan karo horena looma socon karo waa xaqiiq jirta waxaan kaloo aan ka codsanayaa shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inaan fidno colaadeed la kicin waxa la isku hayo waa doorashaduna waa wax sanduuq lagu rido kaambeynkuna waa hadal qori boos ma bannaan saan filaayo markaan waxaan qabaa qoryaha waaweyn in la iska dhigaan aad u rajaynayaa dadku hadal buu ku kala bogan karaa nin soo hadlaaya hadda lama hareer mari karo nin iska tagi maayo madaxda qaybtoodna waxaan u sheegayaa qofka ruuxadiisa yaan la kalifin oo mar inay bahashu qaraxdo waa suuragale halkaasna yaan la isgaarsiin oo ha la isu turo oo dadka iyo dalka ha loo turo wixii hadal lagu dhammayn kara aan hadal ku dhammayno insha Allah waxaan rajaynayaa doorasho wanaagsan oo la isaga qanacsan yahay inay dhacdo shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan kalsooni waa sii liidata oo waa u garaabaynaa laakiin ogaada dadka badanaa marmar la yiraahdo doorashadu lugtu ku dhagan yahay way laakiin hal mid aan u sheegayaa dadka Soomaaliyeed iyo dadka reer Puntland waxaan fahamsanaa aniga 4 sano soo socoto in qodobadan masiiriga ah laga hadli doono oo meel la isla dhigi doono marka doorasho aanan 4 qodob ka shaqeynayn haddaan ogolaado hadhow ma dhihi karo dastuurka hala dhameeyo federaalka ha laga shaqeeyo marka waxa laga hadlayo waa danta Soomaali meel kasta ay joogto oo isku dabran ama Soomaali Puntland ha joogto ama Hirshabeelle ha joogto ama dibadaha ha jiraan ama kuwa dhalan doona ha noqdaan aan hadda dunida joogin marka dantaas oo dhan aan ka wada shaqeyno ha la isku dulqaato dabeecadaha siyaasaddu ay leedahay dadka ka shaqeeya kaliya fahmi kara laakiin dadka shacabka ee banaanka jooga wanaaga jecel ilaahay baa inay baday Soomaaliya burbursan inaad dhalataan dulqaad muujiya waa laga baxayaa waa maasantii